dhammaantiin saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka muhiimka ah muuqaalka maanta waxaanu ku hadli doonaa inta aanad sameyn xiriir tahay maxaa laaga baahan dhalinyarada soomaaliyeed waxay ku lumiyaan waqtigooda badankoodu inay galaan xiriiro jacayl oo aan u qorshaysnayn meesha ay ku dhammaanayaan ama waxa laga yaabaa inay naxariis iyo jacayl ay xafladoodii ka waayeen ay ka raadinayaan xiriirka ama inay qiimahooda garan laayihiin oo ay rabaan inay qofka la hadlaan soo dareensiiyo qiimahooda dhammaan badanka xiriiradaasna waxay kusoo dhammaadaan guuldarro iyagoo wadnahooda kaga tagaa nabaro sii jiraya inta ka hadhay nolosheeda haddaba maanta waxa aynu qaadaa dhigi doonaa 3 qodob oo loo baahan yahay qofka xiriirka jacaylka galaya inuu sameeyo ama uu garto haddaba saaxiib si aynu u bilowno haddii aad nagu cusub tahay oo aad tahay saaxiibada nagu cusub ka mid noqo saaxiibadan halkan saaxiib ku nahay keliya waxaa kaa xigta inaad taabato butonka subscribe hagaag kusoo dhowow saaxiibtinimadeeda aynu bilowno qodobka koowaad waxa uu ina leeyahay saaxiibaya noqo qof khaasa xataa maalinta adigu aad damacdo inaad bilowdo xiriir u bilow si khaas ah haddii saaxiibadaada shaqada saaxiibadaada waxbarashadu dhammaantood qof walba oo ka midi uu bilaabo xiriir jacayl taasi adiga qasabkaagama dhigayso inaad bilowdo aynu tusaaleyno qasrigii fircoon waxa ku noolaa nin mu'mina oo lagu sheegay qur-aankeena kariimka dhammaan dadka ku nool qasrigu waxa ay aaminsanaayeen fircoon halka ninkaasi uu aaminsanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin maalmaha ka mid ah ayuu fircoon yidhi acuudu billahi min ashaytaan irajiim daruuni aqtul muusaa igu sii daayo muuse aan dilic ninkaasi mu'minka ahaa maalintaas uu soo dhigay dibadda iimaankiisa waxaana uu yidhi ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah ma waxaad dilaysiin nin idhi ilaahay waa allah sheekadan aynu soo qaadanay ninkaasi waxa uu caddeeyey mowqifkiisii wakhtiga adag dhammaan dadkoo dhan waa ka fikir duwanaayeen laakiin isagu waxa uu muujiyey raganimadiisa haddaba sheekadan waxa aynu ka baranaynaa inayna qasab ugu ahayn haddii saaxiibadaada wada bilaabaan xidhiidh ama saaxiibadaada shaqada ama dadkoo dhan ay isku tuuraan bad inaynan ahayn adna inaad badda la gasho adigu maalinta aad rabto inaad bilowdo inaad ku bilowdo wax khaasa ka duwanaanshahagu waa adiga quruxdaada saaxiibayaal qodobkiina labaad waxayna leeyahay xuduud samee maalinta ay qalbigaaga ka soo go'do inaad u dhowaato qof kale waa inaad samaysataa xad aanad ka tallaabi karin adiga uuna qof kale kasoo tallaabi karin xad isku dhowaanshihiinu xad aanad ka tallaabi karin adigu qof kale una ka tallaabi karin aynu tusaaleyno xayawaanka la yidhaahdo gasheetada waa xayawaan dusheeda kule qodxo xayawaankaas kuwa ku nool dhulka birafleyda ama qabowgu waa isku soo dhowaadaan aad bay isugu soo dhowaadaan si ay iskaga dugsadaan qabowga meesha ka dhacaya haddaba xayawaankaasi haddii aad isku soo dhowaadaan waxa midba midka kaga galaysa qodxaantiisa laakiin xayawaankaasi waxay isku soo dhowaadaan si cabirsan oo togan ay isku soo dhowaadaan si cabirsan oo caqliyeysan waxay soo dhowaadaan iyagoo aan istaadanayn qodxaantoodu diirimaadna isku dareemaya oo barafkiina iska dugsanaya qodxaantooduna aan istaadanayn haddaba adigana maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaad xad u samayso xidhiirkaaga inaad xad u samayso dhowaanshaaga qofkan intee leeg baad dhowaanaysaa qofkan muxuu kaa ogaanayaa haddii aad qof jeclaato micneegu maaha inaad qofkaasi noloshaada aad uga dhigaysid buuq furan waa inaad privacy yeelataa qofkan goorma ogaanayaan saaxiibadaada jecesha la tashataa qofkan goorma ogaanayaan qoyskaagu goorma ayaad qofkan usoo bandhigaysaa hawguur qofkan markaad wada hadlaysaan muhiimadda wada hadalkiina waa noqdo dhisidda qoys cusub oo ku dhisan cabsida ilaahay saaxiib qodobkiina saddexaad waxa uu ku leeyahay la tasho qalbigaaga badankeen waxaan la tashanaa dadyo kale kuwaasoo siiya talooyin natiijadooda aan la maharin hadda xaaladdan adiga waxa laaga baahan yahay inaad waxaa keliya la tashanayso u noqdo qalbigaaga haddii caqligaaga iyo maskaxaada isku diidan yihiin qofkan yahay hooyada saxda ama aabaha saxda ee carruurtaada ama qofkaad niyad ahaan aad ku riyoonaysay
hadigaama xiriirka laakiin maalinta uu qalbiga uu ku dhacdo qofka waa qaybtaada kale ee lagu abuuray qofkan waa qofka keliya buu noqon karaa carruurtaada ama hooyo noqon karaa maalintaa waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo xiriirkaaga adiga oo sameynaya saddexda qodob aynu soo sheegnay noqonaya si khaas oo bilaabaya number laba xiriir sameynaya xiriirkaaga number saddex fariinta qalbigaaga raacaya ku nooloo tahay mahadsanid asalaamu calaykum